tareen sida meydadka dadkii ku dhintay diyaaraddii maleeshiya ee ku burburtay ukraine ayaa gaadhay magaalada ay dowladda maamusho ee kharkiif ee bariga ukraine. dhanka kale waxaa sare usii kacaysa xiisadaha u dhexeeya ruushka iyo maraykanka ee ku aadan diyaaraddan lagu soo riday bariga ukraine. labada dal ayaa hawada isu marinaya hadallo kulul oo u muuqda kuwo ka turjumaya khilaafkooda ku saabsan saameynta ay ku leeyihiin arrimaha caalamka. arrimahaasi ayaan waxaan ka waraystay aadan sheekh xasan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed dhanka xiriirka caalamiga oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Norway. waxaa la dhihi karaa waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee khilaafka, gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyay daandaansi xoog badan ayaa wuxuu ka dhexeeyay labada dowladood oo meelo badan ka jiray. waxaa ugu sii xoog badnaa marka mantiqadan laga hadlayo dhinacan Ukraine oo markii ay ruushku si toos usoo farageliyeen ay markaasi jasiiradana kelima la yidhaahdo ay ku biiriyeen dalkoodii. maraykanku wuxuu ka istaagay mowqif cad, marka waxaa cunaqabateyn la saaray ama cunaqabateyn ay isdhaafsadeen labada dhinacba. maraykanka ku horreeyay cunaqabateyn saaray dalka ruushka iyo mas-uuliyiin ka tirsan ee dowladda ruushka. sidoo kale ruushkana tilaabo lamid ah ay qaadeen. in badan isfaham la-aan xoog badan oo khilaafa ayaa arrintaasi ka jiray. marka waxaa la dhihi karaa diyaaraddan oo xilligan dhacday meesha ku dhacdana ay tahay meelaha khilaafka uu ka jiro oo ugu ballaaran ay kamid tahay. kooxo oo ruushka taageersanna ay haystaan oo kasoo horjeeda dowladda Ukraine oo ay taageeraan dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanka. marka waxaas oo dhan markaad fiirisid ee mantiqada hadda ka jira iyo xaaladda hadda la taagan yahay waxaad dhihi kartaa waa weji ka mid ah wejiyada khilaafka ee ugu muhiimsan ee hadda labada dowladood u dhexeeya. arrintan saameyn intee lag ayay ku yeelan kartaa nabadgelyada guud ahaan dunida? laba dhinac ayaan loo kala qaadi karaa. dhinac waa dhinaca salaamada ama nabadgelyada ee xagga diyaaradaha guud oo hadda waxaa arrintaasi ay fajac ku riday markii dadkaas tirada badan meesha ay ku dhinteen oo badankooda ay u badnaayeen dad khubara iyo dad aan waxba galabsan ay u badnaayeen diyaaraddii meesha lagu riday. ilaa ay hadda xaqiiqada la raadinayo yaa ridayna aan la garanaynin oo labada dhinacna isku eedeynayaan ay leeyihiin waxaa riday kooxba kale ay ku eedeynayso. runtii walaac xoog badan iyo ayaa arrintaasi kasoo baxay oo dad fara badan hadda waxay leeyihiin yani meelahaas oo kale ayaa la marin diyaaradaha in digniin la siiyo. meelo kaloo lamid ah oo caalamka dunida ballaaran ahna dhibaatadaasi ayaa sidaas oo kale inay ka dhacdo laga baqayaa. oo waxaa leeyahay meel kasta koox falaagaha ay joogaan ama dowlad walba inay adeegsato siday rabto hadhowdiina ay qariso wixii daliil ahaa markaasi ay caddaynaya in diyaaradaha la rido. marka waxaa la dhihi karaa mabda'i ahaa nabadgelyada diyaaradaha oo civilka ama shibilka ah ayaa khatar ku jiro. dhinacaas waa dhinac oo cabsi laga muujinayo ilaa hadda. dhinaca kalena guud ahaan de waxay ay sii hurinaysaa ama dab kusii shubaysaa dagaalada maalmahan socday qaababka dadban laisugu hayay ka socday ama dhinacan suuriya oo labada dhinac si xoog ay ugu dagaalameen kooxda kale ay taageertay Ukraine oo markii ugu dambeysay ay ka dhacday. marka waxaa la dhihi karaa caalamku wuxuu kusii socdaa nabadii ayuu kasii socdaa wuxuu usii socdaa dhinaca dagaalada ayaa la dhihi karaa. arrintani waa arrin kale oo muhiimsan ama keeni karta inuu caalamka ama dowladahan hadda dagaalamaya hadday ahaan lahayd maraykanka iyo ruushka ay sii huriyaan waxyaabaha markaas ayaga ay rabaan. ma laga yaabaa hadallada kulul ee ay warbaahinta isku dhaafsanayaan labada dhinac inay wiiqdo baaritaanka la xidhiidha cidda ka dambeysay weerarkan diyaaradda lagu soo riday? ilaa xad waxaa la dhihi karaa marka laga hadlayo xaqiiqo in la raadiyo si loo ogaado waxyaabahan dhacay waxay u baahan tahay arrin u baahan si cilmiyeysan in loo baaro. dadka baarayana laga ilaaliyo wax kastoo pressure oo labada dhinac kaga imaan kara. taas ayaa waxay keeni kartaa in xaqiiqo fiican ay hogaamiso. runaantii way saameynaysaa hadallada laisku dhaafsanayo warbaahinta. weli saameyn xoog leh ay ku yeelanaysaa in ay kooxda kale pressure ku saarto. waxay keeni kartaa inay marin habaabiso xaqiiqo dhab ah oo la gaaro. hase yeeshee ilaa xad haddana markaad u fiirsatid dowladaha badankood ama kuwa sida gaarka ay uqusayso sida Malaysia ama dowladda Holland oo dadkeeda muwaadiniinta ugu badnaa meesha ku dhinteen ilaa xad waxay xooga saareen in arrintaasi aan si cilmiyeysan loo farsameeyo, aan koox isla markaas si toos ah loo abaarin ee xaqiiqada dhabta ah la gaaro. waxaad ka fahmi kartaa hadallada inta ugu badan ay ka sheegeen warbaahinta ay ka fahmi kartaa dadka sida gaarka ay arrinta markaasi u qusaysa ama qolyaha diyaaradda iskale sida Malaysia ama dadkooda meesha ku dhintay. laakiin dadka markaasi markaad u fiirsatid aad isleedahay waxay ka baxeen ama waxay ka baxeen anshaxii xataa caadiga ahaa marka sida luqada diblomaatiga ka baxeen waxaad dhihi kartaa waa dowladaha marka hore iyagaba dagaalka u dhexeeyay oo dagaalkan Ukraine ka socday. marka arrintan diyaaradda waxaad moodaa koox walba inay rabto inay ka dhigato
barnaamij ay kusii barashar garaynayso kooxda kale marka ama ha ahaadaano labada dhinac ee kala taageera Ukraine oo dhinaca iyo kooxda kasoo horjeeda oo dhinaca ama dawladaha kala taageera Mareykanka oo dawladda taageersan iyo Ruushka oo taageera kooxda dawladda kasoo horjeeda ka dagaalama bariga Ukraine markaad eegto xaaladda imika la marayo xiisadan inay soo nooleyso ma laga yaabaa dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyay Ruushka iyo Mareykanka arrintaasi waxaan aaminsanahay dagaalkii qaboobaa run ahaantii inuu soo laabto aad bay u adag tahay walow dadka hadda marka sida aad si qoto dheer arrintaasi loo lafagurayo oo laleeyahay maalmahan wuxuu u taagan yahay qaab kale oo ka duwan qaabkii hore haddana run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay dagaalkii qaboobaa way adag tahay inuu soo laabto markuu dhacay dagaalkii qaboobaa waxaa jiray arrimo fara badan oo markaasi taagnaa iyo factors fara badan baa ka qayb qaatay in ay arrimaha noocaas oo kala dhacaan hadda caalamku ka gedisan yahay arrintaasi waxaa jiro reer galbeedka oo dhan oo dhinaca oo dawlado xoog badan oo Mareykanka hogaaminayo Ruushka si kastoo loo yiraahdo dawlad weyn ayuu yahay haddana ma waajihi karo dawladahaasi awoodda ay leeyihiin iyo rabitaankooda ma waajihi karo sidoo kale ayaga laftooda waxaa ku adag in ay Ruushka ay xoog intay saaraan ama ay ka dhigaan wax ay jibiyaanna way ku adag tahay saas darteed marka nooc waxaa jiro oo dandaansi ah oo rabo nooc kooxda kale inay gool ka dhaliso laakiin ilaa xad waxay u muuqataa dhooltu siyaasadeed waxaana aaminsanahay si xoog ah in ay soo laaban karin dagaalka qaboob ee labada dal u dhexeeya laakiin waa waji kale oo wajiyada siyaasadeed ee la isku hayo caalamka aad ayuu mahadsan yahay aadan sheekh xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo dhanka xiriirka caalamiga oo khadka telefoonka ee dalka Norway ugu ramay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA